بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وورين وحن سلامة الإسلام كل سلامية ودها المسلمين شعب الصوماليين يبرشل استخاتمه وحن ربعنا سجارة والسلامه ضدك استخاتمه ورنتي هالجندير يهولر كبعدي جوانا مسيري جاري من نمي وذا شرموتشي كرتي iyo dadnimo muujiyay ku xaqiijiyay ahdaaftoodii waaweyned intii ugu muhiimsanayd aasaasay maamul iyo aayo ay ku hirtaan dabcan meeshaan soo marnay isaga ma sheekeynayno inteena badan waa la soconay ha lagu kala xog duwanaado ha lagu kala waqti badnaado laakiin waa iska garanayna laakiin waxa xaqiiqa oo shacabka isii raba inaan u sheego inaan maalin go'aan gaarnay go'aankaasi waa ay ka tashi iyo ismaamul uusan lahayn dib u noqosho iyo in gadaal dib loo eego sidaa darteed si maamulka ay ka tashigaasina ugu hagaagaan waxaa laga maarmaana inaan ilaalino midnimada oo ka bilaamaysa midnimada siyaasiga iyo midnimada bulsho taasi waxay ku iman kartaa oo inoogu hagaagaysa oo inoogu barakoobaysa inaan ilaalino wixii aan ku heshiinay wixii aan ku soo saarnay bayaankii laascaanood wixii aan ku qoranay axdigii ee lagu dhaariyay maamulka sidaa darteed waxaan rajaynayaa haddii aan ku dadaalno inaan axdigaas ilaalino iyo waxa ku qoran ee markii hore aan ku heshiinay inaan midnimo helayno mid siyaasi iyo mid bulshada waxaan rabaa inaan tilmaamo dhowr qodob oo ka mid yahay shirweynaha axdiga ku yaal xuye shirweynaha axdiga ku yaal waxa weeye shirweynihii ay ka tashiyay ka bacdi bayaankii laascaanood ka bacdi axdigii la qoray ka bacdi maamulkii la dhisay ka bacdi dagaal baa lagu jiray waxaan damacnay in marka deegaankeena aan ka saarno dadkii soo duulay ee ku soo hungureeyay ilaahay guusha naga siiyay inaan ka bacdi samaysano dib u eegis iyo qiimeyn iyo horsocod iyo inaan maamul rasmi uga gudubno haddaba maamulka rasmiga ah waxaa laga gudbi karaa wada tashi siyaasadeed iyo wada tashi bulsho wada tashiga siyaasadeed sida uu u dhacayo axdiga qeexaya shirweynuhu soo u dhacayo axdiga qeexaya shirweynahaas waxaa laga rabaa inay ka soo baxaan hanaankii maamul rasmi loo gudbi lahaa oo bulshadu sidii hore isugu raacsanayd ay u sii xoojiso su'aashu waxa weeye si maamul rasmi loogu gudbo ma khasaba dastuur inaan qorano shardi uma aha arrintaas waxaa shardi ah inaan wax heshiis ku nahay inaan shirno inaan ku dhawaaqno inaan maamul rasmi nahay wixii ijraa'ada ama qodobo ah ee inaga qabyana shirweynaha dhamaystiraya wuxuuna ku dhamaystirayaa inuu maamulka rasmiga ku hawlgalo su'aashu waxa weeye ma dastuur baa la diidan yahay maya laakiin dastuur goorma la qorayaa see loo qorayaa yaa qoraya dhammaan arrimahaasi waa arrimaha shirweynuhu ka hadlayo waxaa iyana meesha ka maqnayn maamulka SSC khaatumo wuxuu u baahan yahay ama wacan in dal iyo dad cusub ay ku soo biiraan sidaa darteed waxaan laga maarmay iyo dalka iyo dadka cusub wax loo hambeeyo oo aysan noqonin maamulna waa dhisanay dastuurkina waa dhamaystiranay ciddii la danaynaysa in SSC wax la yeelato ha iska soo dhawaato arrinta aanu sax uma arko waxaan u arkaa in maamulka la sii jiri karo maamul rasmi ah u gudbi karo axdigiisana ku sii shaqayn karo dadka iyo dalka aan doonayna inay maamulka ku soo biiraana wax loo hambayn karo arrintaasi tala u baahan tahay tala u yeeray u baahan tahay sidaa darteed shirweynuhu waa laga maarmaan taamicineedu maaha shirweynuhu meesha ka saaraya dowladnimada wasaaradihii waa jirayaan
hay-adihii dowladda waa jirayaan sidoodii bay ahaanayaan mas-uulun baa bedelay meel uu joogaba marka shirweynuhu dowladda ma kala dirayo dowladdana dib uma ridayo kaliya taladeenu inuu hore u gaadhnay baynu hagaajisanaynaa intaas waa inay caddahay arrinta dastuurkuna waa caddahay waxaan soo dhawaynayaa cid kasta oo ilaalinta axdiga taageerta oo ugu horeeyaan xildhibaanada iyo wasiirada odayaasha iyo dadka shacabka sidaa darteed waxaan ku boorinayaa shacabka isii khaatumo inaan u midowno inaan maamulkeenu sii hana qaado sidoo kale waxaan ku baaqayaa in wada tashi dhaba oo xaqiiqo oo siyaasi u dhaco si meesha uga baxo wixii ama khaldami kara ama naga xumaan kara waxaan rajaynayaa inaan dhammaanteen gacmaha isqabsan doono taladeenu wada tashi noqon doonto. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.